السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرابة aad baan idin salaamayaa asxaabtayda iyo ehelkayga ku xidhan youtube channelkayga aad bay u salaamantihiin maanta waxaan idin hayaa vlog yar oo ah jimicsi nafta u raaxee maskaxda furfur ku raaxayso cimilada maasha allah tabaarakallah galabta waan soo lugaynaynaa maxay ahayd tole waxaan tegaynaa meelaha dabiicigu ku badan yahay nafta aad waxay ugu raaxaysataa waxyaabaha dabiiciga ilaahay subxaanahu wa tacaala abuurkiisa ah dhirta biyaha dhagaxa yacni waxyaabahaas markay naftu aragto aad bay ugu raaxaysataa oxygen fara badan oo fresh ayaad kasoo helaysaa jir ahaan iyo naf ahaanba way fiican tahay hadda waan kasoo leexday wadadii weyneyd waxaan soo dhexgalay ilaahow meeshan aanay bahal ugu cunin oo maxay ahayd tolay cawska dhexdiisa waxa ku jira ilaahay unba og naftu ay u daawato maxay ahayd tolay dabiicigaas ilaahay soo saaray ilaahay ha naga nabadgeliyo makhluuqaadkiisa aanu arkayn samarkii uu sii baxaya marka way naga sii faa'iideysto maalmaha qorraxdu jirto wadada intaan ka soo degay baan iska jeclaaday maanta inaan wadiiqadan yar maro lagu soo raaxaysto lugta nafta u baahan socodka dirtiba samarkii uu baxayaa cawskii uu soo cadaanaya ila socda asxaabey kreem buu soo yeelanaya maasha allah musicna idinma nasin karo oo youtube-kan ogolayn marka maxay ahayd awoodda ilaahay copyright haysanin xaq lahayn qurux marka maxay ahayd toolay mararka qaarkood haddaan idinka aamuso dhirta ku raaxaysta iyo daawada maasha allah hadda waxaynu soo galnay beer yaroo kaaliska araga wadada dadka mara iyo baaskiilada maasha allah qurux sidee u tahay markaad soo dhex gasho waxyaabahan cagaarka greenka ah naftu way ku raaxaysanaysaa waxaad dareemaysaa wax aanad markaad gurigaaga dhexdiisa joogto ama suuqa joogto ama dariiqyada caadiga ee dhismayaashu ka jiraan aad marayso aanad dareemin halkaa biyaha inooga muuqda maasha allah waxaas aan soo dhaweynayaa waa biyihii biyo yar baa meeshaa jiifa kaaliska arag aad ayaan u jecelahay dabiiciga inaan kaynta galo dhirta siiba markay cagaarka yihiin aad bay naftayda ugu raaxaysataa waxaan rajeynayaa idinkuna inaad ka heshiin so qofkii jaanis u haysto dadkoo dhan jaanis uma haystaan qofkii jaanis u haysto waa inaad ka faa'iidaysatid iminkana waxaan soo galnay meel yaroo iska miyimiya sababtoo ah waxaan rabaa maanta inaan dhul dabiiciya kaliya arko ciid dhagax biyo geedo caws waxaas unbaan rabaa inaan arko maasha allah mararka qaarkood markaad dhirta cawska iyo waxa isku jira aad aragtid qorraxdina daawo fallaadhihii qorraxduna way nahayaan alla abuurka ilaahay qurux badanayo wanaagsanaa maasha allah tabaarakallah kaaliska arag meeshaa yar iyada waan kasoo leexday oo xoogaa cabsi bay ila eegaatay soo wadadan xoogaaga ka yara ballaadhan baan marayaa roobba yar baa nagu da-ay maanta soo biyihii weli dhulka in yar baa sii fadhida roobkii samada ka imanayay iyo alla maasha allah waa nimcooyinka ilaahay nimcooyinka ugu wanaagsan halkan baddi baa ku taala waxaan deganahay meel yaroo jasiiradahoo dhinac kasta badi kaga xidhan tahay soo badayda waxaan ku odho 20 daqiiqo ka yar baa loo lugeeyaa meelaha qaarkoodna waa 5 daqiiqo hadda tan ilaa 20 daqiiqan usoo lugeynayay adugu maasha allah lugtana nafta u baahan dabiicigana waxa u baahan nafta lugtana jirka iyo naftaba u baahan yihiin hadda ciidii baan iska fadhinaa waa xeebtii
maasha allah. ciid sida aan u qaadqaado goori ugu dambeysay ma garanayo. waan ku raaxaysanayaa ciidaan iska dhex fadhiyaa. baddaasna waan iska daawanayaa. kaale iska arag meeshan dadku way iska yimaadaan waqtiga kulaylaha, halkaas iska fadhiistaan. wixii badda gelaya dabaalanaya halkaas ku dabaashaan. wixii kalena maxay ahayd toole halkaasay iskaga nusu saacahooda iyo casariyahooda iskaga cunaan. kaale iska arag. anigu xabad muuse keliyaan soo qaatay, xabadeydii muuskan meesha iskaga cunay. halkana waxaa lagu samaystaa gariilka. dad baa imika halkaa ku gariilaysanaya, hilib bay solanayaan. dad baa caruurahoodii soo kaxaystay oo meesha iyaguna ku gariilaysanaya ama hilib ku solanaya. kaale iska arag. meeshan yaro waxaan kula waa meel yaro. waxaan kula lacag kuguma joogto, waa iska soo baxoona iska soo damaanshaad. hadaynu Soomaalina socodka waa laynagu dhiba. aad baynu necebnahay. guryaheena iska jecelaynaynu joogno. laakiin socodku waa caafimaad. socodku maxay ahayd toolay sidan horeba idinku sheegay jidhka iyo maskaxda labadaba wuu wanaagsan yahay. markaad jaanis u heshidba ilaahu bal may 15 daqiiqo ahaato waa inaad socotid. maalinta ugu horeysa aad socod bilowdana weliga iyo allaha ha ka bilaabin saacad. halkaa doonyihii baa ku safan. maasha allah qurux. doonyihii laashashkii ayaa ku baarkin garaysan. biyahaygaasaan iska ag fadhiyaa. mar waxaan ku idhi Soomaaliyey saaxiibayaal, aad iyo aad baan idinkula talin lahaa inaydun meelaha saas oo kale ah hadday idin dhow yihiin oo jaanis u haysatiin ay ka faa'iidaysatiin. aad bay u qurux badan yihiin. socodkana ha ka bilaabina saacad. socodka haddaad hore aanad u socon jirin 10 daqiiqo haddaad maalintii socotid kugu filan. maalinta dambe 5 ku dar. maalinta dambe 20 ka dhig. maalinta dambe 30 ka dhig. marka aad jidhkaagii la qabsado ee murqyadaadii soo dhismaane cagahaagii la qabsadaan saacad gaadsii. daawo sida loo qurxistay waa badda agteeda. doon yar oo looxa baa la dhigay. waxaa lagu dhex beeray ubaxyo. Soomaaliya dhulkeena Ilaahay saa ha u qurxiyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.